marka saasaynu ku soo ururinayna su'aasha kale waxa ay dollar deyna haddaan cid ku leeyahay ma bedelan karaa ma sarifan karaa oo qofkii shilin ma ka qaadan karaa ha idaa lam yakun baynakuma shay'un qofka $100 baad ku leedahay halkaad 100kii ka qaadan lahayd waad odhan kartaa hebelo 100kii aad ii haysay ii sarif oo shilin igu sii xadiidkii ibn Umar ayaa daliil u ah geelan soo iibsan jiray kolkaasaan danaaniir ku soo iibsado lacag dahab ah goodhow qofkii waxaan ka qaataa daraahim oo lacagtii cadaanka ahayd anigoon tii dahabka ahayd kala wareeginba waa nabigu uu ogolaaday laakiin shardi buu ku xidho wuxuu haddaydan waxba isku yeelanayn ila waa sarif waana waxba isugu keen hadhin $100 adii haysay ii bedelo ii sarif waxna iyo kuugu hadhin ee ka wada qaado haddii aanad ka wada qaadanayninna waxaad tiraa $100 adii haysay konton ii sarif kontonka kalena dollarnimo iigu hay marka waxaa la diidayaa intoo kala sarifataan lacagta in baaqi isku sii yeelataan oo ribadii baa galaysa la odhan jiray ribada gacanta